boqol Axmed Liibaan Warsame ayaa ku eedeeyay boqol Buurmadow inuu yahay shakhsi laaluush qaata oo ka qaata xukuumadda galwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo. Waxaanu cadeynaynaa ciddii noo timid ee nagu tiri gurigaaga inta noogu yimaadeen waxa doontaa baan ku siinaynaay xamar tag oo waxaad ku tiraahdaa wadani baana soo dirtay mashruuc iska soo socday marka waxaanu leenahay oo kaga baxaya boqol Axmed Liibaan Warsame oo warbaahinta kula hadlayay hotel xarafa magaalada Hargeysa ayaa uga digay shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliland wararka ay isku marinayaan warbaahinta inay waantoobaan ilaaliyaan nabadgelyada ay ku noolaanayso Soomaaliland. hore Soomaaliland hidayna u lahayn ee imika ka dhaca Soomaaliland iyo waxaan la isku marinayo warbaahinta waxaanu dhaqan u lahaan jirnay maaha waddankeenuna waa wuxuu ku burburi doono haddii aynaan laga waantoomin ama ayna bulshada ama shicibka ama waxgaradka iyo culummadu ayna arrintaa ka hortagin aafadeeday leedahay taasoo ah inta badan raggii la doonayey maogtay inay waddankan hogaamiyaasha xisbiyada oo miidiyaha isku marinaya waxyaabo aan ku habboonayn waddanka Soomaaliduna waxa ku maamaadaa geela duqoodi durduriyay arrinkeedan maxaad u malayn waxa jirta waxyaabahan imika la leeyahay hebel la kulmay iyo hebel baa halkan la tagay war Somaliland mowqif adag bay iska taagtay bulshadeedu way ka tashatay maseerkeedana qof iyo laba wuxuu wax ka bedeli kara maaha dawladdii riyaale iyo kuwii ka horeeyayba meel bay iskaga xidheen cidda qufulka ka jabisay ee ka ansixsatay baarlamaanka waa dawladdan kulmiye in lala hadlo Soomaali weyn gudiga dibadii iyo meel walba lagu hadlay meeshii la arko waynu ognahay ilaa 50 madax dhaqameed ayaa ka soo degay airportka Hargeysa oo dawladdu ay yeeratay oo halkan ay ku macsuumeen oo kula hadliyeen موقفكود waxba kama beddelay Somaliland waa dawlad madax banaan waa dawlad aynu qaadanay mowqifkeeda aynu isku wada raacnay yar iyo weyn dastuurku u codeeyay sida dawladaha jaarka ay Somaliland la mid tahay maanta maaha wax lagu ololeyn karo hebel been abuur la hadlay waxa la doonayaa dadka maanta xisbiyada amaba caalamka waynu la soconaa horumar baa la gaadhay xisbiyadu waxay ku ololeystaan war waddanka waxaanu ka qabanina dhaqaalahan hagaajinina waxaanu sameeynaa tacliintaanu xagga sidaa u sameeynaa caafimaad baanu ka shaqeynaa ayaa lagu ololeystaa oo ummadda lagu soo jiitaa laakiin ummadda laguma soo jiito hebel ayaa maanta hebel la kulmay ama is salaameen mashruucan imanka socda oo mashruuc aniga layla yimid oo rag madax dhaqameeda oo magac weyn ku leh Somaliland inta gurigeyga ila yimaadeen ay yiraahdeen waxa doonto ayaanu ku siinaynaa xamar tag waxa tiraahdaa wadani baa ay soo diray media xamar ka hadal oo waxa tiraahdaa Soomaali weyn baanu doonaynaa oo wallahi waa layla yimid wallahi waa magac Ilaahay mashruucan waa mashruuc soo socday wax soconayana maaha hebel la hadlay ee waxaan leeyahay madaxda xisbiyada ha ku ololeystaan wax ay ummadda ku soo jiidan karaan ha ku ololeystaan waddanka waxaanu ka isbedel baanu ku sameeynaa waxbaanu ka qabanna laakiin maanta looguma fadhiyo madaxdii wadani ayaa Nairobi hebel kula hadashay wartaas wax soconaya maaha wax ummadda ayaa la jaahwareerin aan wax leh waddanka la badbaadiyo hal laga daayo wareerkan iyo jaawareerkan iyo bulshada la iska dhex keenayo iyo ololahan ku salaysan qabiilka war haddii qabiilku ay istilaan oo Somaliland qabiil la isku dilo cidda xukumayaan waayo cidda ay leeyihiin waanu xukuminaa oo waanu talinina oo talaanu madaxweynayaal baan ku noqona waayo haddii bulshada la isku diro waxay wax ku xukumi karaan bulshada oo mida bulshada oo walaala Somaliland oo mid meel ka soo wada jeeda oo hadaf mida wadata ayaa kii kursiga fuulaaba ku doonaa noqdo wax ku xukumi kara laakiin hal iska daayo propagandahan iyo qabiilkan iyo waxaan ma ogtahay maanta Somaliland hore aynu u lahaan jirnay ku soo kordhay iyo hebel la kordhay